waxaad ku soo dhawaataan taariikh nololeedkii Allah u naxariistay Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday dalka Turkiga gaar ahaan caasimadda Ankara. Waxaan rabnaa inaan maanta ka hadalno taariikh nololeedkii iyo sidoo kale waxqabadkii wadankani iyo xilalkii kala duwanaa oo soo qabtay. waxaan ku guda jirnaa taariikh nololeedkii Allah u naxariistay Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday dalka Turkiga gaar ahaan caasimadda Ankara. Xasan Abshir Faarax wuxuu ku dhashay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal bishii June 1945 deegaan ahaan waqtigiisii wuxuu ku soo qaatay magaalada Muqdisho siiba heerkiisa waxbarasho. sidoo kale wuxuu ka qalin jabiyay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed asagoo bartay kulliyadda ciidanka ama wax lagu magacaabo military academy. sanadu markay 1963 ciidanka xoogga dalka ayuu ku biiray Xasan Abshir Faarax. Xasan Abshir Faarax waxaa loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho isagoo ahaa maayirkii ugu da'da yaraa. sanadu markay ahayd 1998 Xasan Abshir Faarax ayaa ka mid ahaa aasaasihii dowladda Puntland. 2001 dowladii Carta ee Djibouti lagu soo dhisay ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa waxaa loo magacaabay inuu ka noqdo ra'iisul wasaare iyadoo markaasi xilka laga qaaday Dr. Cali Khaliif Galeyr. 2006 ilaa 2007 dowladii madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa u magacaabay wasiirkii howlaha guud. 2003 dowladii ku meel gaarka ahayd ee Xasan Abshir u dooratay wasiirka kalluunka laakiin wuxuu aad ugu dadaali jiray dhinaca nabadeynta dalka Soomaaliya sidoo kale wuxuuna maamulo ka ahaa Shabeellada Hoose iyo Bakool. Xasan Abshir wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay dalalka Japan iyo Jarmalka. Xasan Abshir Faarax Allah u naxariisto wuxuu ahaliyay Soomro wadankeena xilal kala duwan ka soo qabtay. si kastaba ahaatee qof kasta oo Soomaali ah waxaan laga doonayaa inuu u duceeyo in Ilaahay u fududeeyo su'aasha qabriga Ilaahayna geeyo